Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codka idiin soo gaaraya kusoo dhawaada barnaamijkii subaxnimo oo aan ugu talagalnay inaan kusoo qaadano waxyaabihii ugu dambeeyay ee laga qoray kubadda caalamka. Haddii aynu ku bilowno shalay ilaa iyo xalay waxaa jira kulamo xiiso badan oo isaga hor yimaadeen kooxaha kala dhisan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska iyo horyaalada caalamka guud ahaanba, kuwaasi oo qayb ka ahaa isku diyaarinta sanad ciyaareedka cusub 2024-25. Kulamadani ayaa waxa ay inta badan diiradda lagu saarayay in kooxaha ay iska adkeeyaan boosaska ay u arkaan inay daciif ka yihiin. Kulankii ugu horreeyay waxaa ka mid ah kulankii ay wada ciyaarayeen kooxda Liverpool iyo kooxda Sevilla oo kala ciyaara horyaalada Premier League ee dalka Ingiriiska iyo horyaalka La Liga 1 dalka La Ligaha ee dalka Spain. Liverpool iyo macalin Arsenal Slot ayaa waxa ay kusoo galeen shax ku dhisan. Alisson Becker ayaa kusoo bilowday goolka, halka Alexander Arnold oo kusoo bilowday garabka midig. Jurriel Quansah iyo Virgil van Dijk ayaa kusoo bilowday difaacyada dhexe. Tsimikas ayaa soo fariistay garabka kale. Khadka dhexe waxay ahaayeen Graham Potter iyo Alexis Mac Allister, waxaana ka horreeyay Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai iyo Luis Diaz, halka lambarka 9aadna uu ciyaarayay Diego Jota. Dhinaca kale, macalinka lagu magacaabo Garcia isagana wuxuu kusoo galay goolka. Nyland xidiga la yiraahdo xidigihii ugu muhiimsanaa ee kooxda Sevilla u ciyaaraya waxaa ka mid ah xidiga lagu magacaabo Saul. Ciyaartaas ayaa waxaa kusoo dhamaatay 4-1 oo ay ku adkaatay kooxda uu hogaamiye Arsenal Slot. Guushaani ayaa ka dhigan guul muhiim ah oo ay gaareen ka hor furitaanka horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Diego Jota ayaa bilaabay goolka, caawin uu ka helay Alexander Arnold. Luis Diaz ayaa xijiyay goolka, halka goolka saddexaad uu dhaliyay Luis Diaz, caawin uu ka helay Dominic Szoboszlai, halka uu soo xiray goolka afraad xidiga lagu magacaabo Nery Nyon. Halka goolka kaliya ee Sevilla ay la timidna waxaa u dhaliyay xidiga lagu magacaabo Baco. Ciyaartaas ayaa waxaa kusoo dhamaatay 4-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Liverpool. Kulan kaloo xiiso badan leh isla habeenkii xalay waxay la ciyaartay kooxda lagu magacaabo Las Palmas ee dalka Spain, balse shaxdii uu kusoo galay macalin Slot shaxdii koowaad ee Sevilla wax badan ayuu ka bedelay oo waxa uu kusoo galay xidiga daayar ah oo lagu qiimeynayay heerka ay ka joogaan kubadda cagta, islamarkaana qayb ka noqon kara xilli ciyaareedka soo socda. Ibrahim Konate ayaa kusoo bilowday difaaca dhexe. Nat Phillips ayaa wehelinayay, halka Robertson iyo Cole Bradley ay ciyaarayeen garbaha difaacyada dambe. Khadka dhexe waa Harvey Elliott iyo Wataru Endo iyo Curtis Jones. Weerarkan waxaa kusoo bilowday Bindoka xidiga da'da yar ee kasoo baxay akademiyada kooxda Liverpool, Darwin Núñez iyo Gakpo. Ciyaartaas ayaa iyadana waxay kusoo dhamaatay barbaro 1-1 ah, waxayna qayb ka ahaayeen kulamada isku diyaarinta uu sameynayo macalin Arsenal Slot ee kooxda Liverpool, inkastoo asagana uu doonayay inuu soo qaato xidiga lagu magacaabo Martin Zubimendi si uu xilli ciyaareedka soo socda iskaga adkeeyo khadka dhexe, door muhiim ugu ciyaaro guulaha ay gaarayso kooxda Liverpool. Dhinaca kale waxaa jira kulan kaloo xiiso badan oo ay ciyaartay kooxda Arsenal ee uu hogaamiyo macalin Mikel Arteta. Kulankan ayaa waxaa ka mid ahaa ama uu ahaa kulan ka tirsanaa Emirates Cup, koobka ay dhigtaan kooxda Arsenal. Kulankan ayaa ahaa kulan aad muhiim u ahaa macalin Mikel Arteta, wuxuuna ku tijaabinayay ciyaartoydiisa, waxayna 2-0 ay ugu badiyeen kooxda reer Liga 1 ee dalka Faransiiska ee Olympiacos Lyonnais. Goolasha waxaa kala caawiyay oo kaliya xidiga lagu magacaabo Declan Rice, waxaana kala dhaliyay difaacyada khadka dhexe ugu ciyaara ee kooxda Arsenal William Saliba iyo Gabriel Magalhaes. Waxa ay kusoo galeen kooxda Arsenal shax ku dhisneed David Raya oo goolka ilaalinayay, halka difaacyada dambe kusoo wada bilowdeen Ben White, Saliba, Magalhaes iyo Zinchenko. Khadka dhexena waxay ahaayeen Martin Odegaard, Thomas Partey iyo Declan Rice, halka weerarka ay ahaayeen Bukayo Saka, Kai Havertz iyo Martinelli. Inkastoo ciyaaryahana dhowr ah ay ku yimaadeen bedel, waxaa ka mid ahaa Trossard, Gabriel Jesus, Reece Nelson, Jorginho, Newari, xidiga lagu magacaabo Luis Cole iyo Calafiori. Isha waxaa lagu hayay xidiga reer Talyaani ee ka yimid dhankan iyo kooxda xulka dhankan iyo Talyaaniga ee lagu magacaabo Calafiori ayaa isagana sameeyay bandhig aad u sareeyo, taasi oo ka dhigneed inuu yahay safashadiisii ugu horeysay ee kooxda Arsenal. Xidigani ayaa isagana waxa uu caqabad ba'an soo dhigay intii loo guda jiray xilli ciyaareedkaasi ama kooxda Arsenal ay la ciyaareysay kooxda Olympiacos Lyonnais.
Xiddigani ayaa waxa uu kusoo kordhin doonaa kooxda Arsenal dhisitaanka marka loo eego kubbadaha dambe, isaga oo wax badan ka beddelay markii uu kusoo biiray, isla markaana difaacyada kooxda Arsenal ay dareemayeen xasillooni ku dheehan kubadda sida ugu dhaqsiyaha badan in khadka dhexe loo soo gudbiyo. Xiddigan ayaa waxa uu ka yimid dhanka kooxda Bologna, xilli ciyaareedkii horena qayb uu ka ahaa shaxda uu hogaaminayay macallin Thiago Motta, balse iminkana wuxuu ka hoos ciyaarayaa macallin Mikel Arteta. Kooxdii Emirates Cup-na oo horey u dhigi jireen kooxda Arsenal dhaqan u ahayd isla ayaga ayaa qaaday, waana af-bilow ayay u noqotay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska 2024-25. Dhinaca kale, kooxda uu hogaamiyo macallin Maresca ee Chelsea ayaa iyagana kulan kaloo xiiso badan waxa ay shalay la ciyaareen kooxda Inter Milano ee horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. Macallinka reer Talyaani ayaa kusoo bilowday Roberto Sanchez, difaacyada dambe waa Fofana, Luis Quagliarella iyo Malo Gusto. Khadka dhexe waxaa kusoo wada bilowday Enzo, xiddiga lagu magacaabo Fernandes, Romeo Lavia, waxaana ka horeeyay Noni Madueke, Trossard iyo Modric. Lambarka 9aadna wuxuu ahaa Marc Guéhi, xiddiga da'da yar ee ka yimaaday dhankani Barcelona. Dhinaca kale, macallin Simeone Inzaghi isaga wuxuu kusoo galay shax ku dhisan Yann Sommer. Difaacyada wuxuu kusoo galay 3 difaac dambe, Carlos Augusto Acerbi iyo Jan Piszczek, halka khadka dhexe ay ugu muhiimsanaayeen Mkhitaryan Dimarco, xiddiga lagu magacaabo Nicolas Barella iyo Marcos Thuram. Ciyaartaasi ayaa waxay kusoo dhamaatay waqtigii loogu talagalay 1-1. Goosha koowaad waxaa la horeysay kooxda Inter Milano 26 daqiiqo markay mareysay. Marcos Thuram ayaa soo taabtay shabaqa kooxda Chelsea, caawin uu ku helay xiddiga lagu magacaabo Joe Correa. Ugu dambeyntiina 90 daqiiqo ciyaarta markay mareysay, Ujugwa ayaa dhaliyay goolka barbaraha ah ee kooxda macallin Maresca ku soo celiyay, isla markaana ka badbaadiyay inay guuldarro soo gaarto. Shaashadaha caalamka waxay hayaan kooxda Barcelona ayaa gabi ahaanba fasaxday xiddiga lagu magacaabo Sergio Roberto oo 14 sano xiriir ah joogay garoonka Camp Nou, isla markaana matalayay maaliyadaha kala duwan ee kooxda Barcelona. Xiddigan ayaa ah 32 sano jir, ayaa ka dambeeyay jiilkii dahabiga ahaa ee ku soo raaxaystay Camp Nou intii ay joogeen macallimiintii isku beddelay Luis Enrique ilaa iyo Pep Guardiola. Sergio Roberto ayaa isaga ahaa kabtankii u dambeeyay kooxda Barcelona ka baxa, waxaa ka horeeyay Xavi Hernandez, Andres Legend Iniesta, Busquets, Lionel Andres Messi, isaga ayaa 5 ku ahaa, iyo Jordi Alba. Ugu dambeynna isaga wuu ka tegay garoonka Camp Nou, sidaas darteedna waxay yeelan doontaa kooxda Barcelona kabtan cusub, waana xiddiga lagu magacaabo Marc ter Stegen. Dhinaca kale, waxaan kusii guda jirnaa sheekooyinka laga qorayo kooxda Barcelona. Nico Williams ayuu hadalkiisa u cadeeyay, waxa uu yidhi oo keliya waxaan doonayaa inaan ku biiro kooxda reer Catalan ee Barcelona. Kooxdiisa Atletico Bilbao uu sheegay inta ka harsan xilli ciyaareedkan ayaa la filayaa inuu xiddigan ka mid noqon doono xidigaha uu la soo shartagi doono macallin Hansi Flick xilli ciyaareedka soo aadan. Haddii ay soo qaadato Nico Williams, kooxda Barcelona way u dhigi kartaa kooxda Real Madrid oo ayadana soo qaadatay xiddiga dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiddiga lagu magacaabo Kylian Mbappe, Endrick iyo xiddiga kale oo ka horeeyay oo Jude Bellingham uu ka mid yahay. Waan eegi doonaa halkay ku kala dambeyn doonaan Nico Williams iyo kooxda Barcelona. Weli waxaan guda jirnaa sheekooyinka laga qorayo kooxda Barcelona galabta ama caawa waxay ciyaari doontaa 3 saac oo habeenimo kulan lagu magacaabo Juan Gambar. Kulankani ama waa caado dhaqameed ay dhigtaan ka hor inta uusan furmin horyaalka La Ligaha dalka Spain, waxayna caawa la ballansan yihiin kooxda AS Monaco ee ka socota Liga 1-ka dalka Faransiiska. Macallin Hansi Flick ayaa la filayaa inuu kusoo galo shax ku dhisan 4-3-3. waxaa si wadajir ugu soo wada bilaaban kara dhankan iyo weerarka Robert Lewandowski, Lamine Yamal iyo xiddiga kale oo ay ka mid yihiin xiddiga dhawaangalka ah ee kusoo biiray kooxda Barcelona ee Dani Olmo. Horna waxaa u joogay xiddiga kale oo da'yar ah, Ferran Torres ayaa ka mid ah, Pedri, Gavi. Waa arkaynaa Hansi Flick iyo koobkan ugu horeeyo haddii uu qaadi doono kooxdiisa cusub ee Barcelona. War cusub ayaa kasoo baxaya kooxda Chelsea iyo kooxda Atletico de Madrid inuu burburay heshiiskii ahaa Samo Omar Dion oo ku imaanaya kooxda Stamford Bridge. Gebi ahaanba heshiiskani meesha uu ka baxay oo u burburay. Samo Omar Dion kuma biiri doono kooxda Chelsea xilli ciyaareedkan. Wuxuu yimid Stamford Bridge si uu u maro heshiiskiisa caafimaad, isla markaana ugu biiro 7 sano u saxiixo si uu usii joogo garoonka Stamford Bridge. Balse wax waliba waxay isku bedeleen qiimaha ay isku fahmi waayeen xiddigan iyo kooxaha Real Atletico de Madrid iyo Chelsea, balse heshiiskiisa ayaa meesha ka baxay, isla markaana wuxuu u laaban doonaa kooxda
Atletico de Madrid maanta oo Isniin ah, balse waxaa asigana miiska saaran xiddiga lagu magacaabo Joe Felix oo tan ilaa iyo kasoo laabashadiisii kooxda Barcelona amaah uga maqnaa xilli ciyaareedkii hore la filayo inuu ka tagi doono kooxda uu hogaamiyo macallin Diego Simeone. Burburitaanka Sama Omar Dion waxay fursad u noqon doontaa kooxda Chelsea inay soo qaataan xiddiga lagu magacaabo Joe Felix oo xilli ciyaareedkan kii ka horreeyay amaah ugu ciyaarayay. Chelsea ayaa waxay u aragtaa Joe Felix inuu ka mid noqon doono xiddigaha ugu muhiimsan ay soo qaadan doonaan, inkastoo lala xiriirinayo xiddiga dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiddiga lagu magacaabo Victor Osimhen oo ay weerarka doonayaan inay ku xoojiyaan. Taasina waxaa fududeyn karto xiddiga lagu magacaabo Romelu Lukaku oo ka baxa Chelsea isla markaana aada Napoli. Waxay suurtagelin doontaa in Victor Osimhen uu yimaado dhankan iyo kooxda Chelsea, balse waxaa kasii fududaan doonto Joe Felix sida uu dhaqsiyaha badan maanta ilaa Ibrit ayaa la filayaa inay heshiiskiisa ama arrinkiisa meel u dhaco kooxda Chelsea iyo kooxda Atletico de Madridna ay ka heshiiyaan heshiiska lagu qaadan karo Joe Felix. Saaxiibayaal, intaan waxaa ku eg barnaamijka ciyaaraha. Intaa barnaamij lamid ah isku maqli doono, waxaa idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo, balse waxaa idinka codsanayaa inaad barnaamijkan oo asxaabtiina u sheergaraysaan. Dhalinyaradu waa mar waliba kuwa iscaawiya waayo oo isgarab istaaga. Sidaas darteed, maadaama aan ahay qof dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarta Soomaaliyeed, waxaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo waxyaabaha ku saabsan kubadda cagta oo Ilaahay aqoon gaar ii siiyay. Marka loo eego waxyaabaha aan ka aqaano oo keliya aqoonteeda, dad badan oo iga waaweyn ayaa jira oo ayagana soo gudbiyay ciyaaraha, balse waxaa is iri maadaamaad in badan aad ku dhex jirtay ciyaaraha, bal ayagana ka gaarsii asxaabtaada si aad ula wadaagtid. Salaam.